السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومركلة اسكسو نقد وناكسن waxaa lagu tiriyaa qisada nebi Ibraahim calayhi salaam iyo 4 shimbirood qisooyinka ugu cajaa'ibta badan ee Qur'aanka Kariimka lagu xusay, waxayna ku tusaysaa inta ay la eg tahay yaqiinta nebi Ibraahim calayhi salaam uu yaqiinsan yahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala. intaynu qisadani guda gelin, haddii aad nagu cusub tahay gambaleelka furo si ay kuu soo gaaraan muuqaalada cusub. fiidiyogana like saar, asxaabtaadana u sheer garay. waxay ku soo aroortay qisadani suuratul baqara. nebi Ibraahim calayhi salaam wuxuu ka dalbaday Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu tuso sida uu u nooleeyo makhluuqa markuu dhinto. dalabkaasina uu Ibraahim u dalbaday ma ahayn mid uu ka shakisan yahay awoodda Ilaahay subxaanahu wa ta'aala, balse waxay ahayd mid uu ka doonayay Ibraahim in uu iimaankiisa ku kordhiyo. Ilaahay ayaa wuxuu ku yidhi Ibraahim calayhi salaam, miyaadan rumaynin awooddayda? wuxuu yidhi Ibraahim, Ilaahayow waan rumeeyey awooddaada, balse waxaan doonayaa in ay laabtu i degto oo iimaanku i kordho. kadib wuxuu Ilaahay nebi Ibraahim amray in uu 4 shimbirood oo kala duwan hal meel ku jamciyo. waxayna kala ahaayeen shimbirahaasi shimbirka daa'uuska, diiqa, qoolleyda iyo tukaha. markuu isku keenay Ibraahim calayhi salaam 4 shimbirood, wuxuu Ilaahay amray in uu 4 gowraco una gooygooyo, kadibna hilibkooda isku qaso. waxaa la amray in uu buur kasta uu saaro qayb ka mida hilibkooda. markuu Ibraahim calayhi salaam sameeyey intaa, uu Ilaahay wuxuu amray in uu u yeedho shimbirihii, wuuna u yeedhay Ibraahim calayhi salaam. wuxuuna indhihiisa ku arkay Ibraahim sida uu u nooleeyo Ilaahay makhluuqa markuu dhinto. qisadani waxaynu ka faa'iidaynaa yaqiin iyo iimaan zaa'id ah, iyo in uu Ilaahay wax kasta awoodo. sidoo kale waxaynu ka daalacan karnaa sida uu nebi Ibraahim calayhi salaam u dadaali jiray in uu yaqiintiisa kordhiyo. Allahu a'lam. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم.